السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وناكسنا أصحابتنا قالي سو دوادا halkan waa channelkeenu Infinite Technology iyo course-keeni inoo soo socday ee Microsoft of Word ama isticmaalka Word-ka ayaynu ku soo jirnay. Maanta waa casharkiisii saddexaad ama casharkiisii labaad markaynu hordhaca ka reebno ayaynu maraynaa. Casharkii hore waxaynu ku soo baranay qaybahan saalahan casharkii hore waxaynu ku soo baranay intaasoo qaybood ayaynu ku soo baranay. Haddii aanad casharka hore aanad daawan dib ayaad ugu noqon kartaa. Waxaynu ku soo baranay sida loo soo furto Word-ka, sidoo kale sida loo abuurto documenti cusub ayaynu ku soo baranay iyo sida loo save gareeyo documentigaagii aad diyaarsatay oo aynu laba hab oo save gareyna aynu soo aragnay. sidoo kale waxaynu soo aragnay sida loo soo furto documenti hore kugu jiray ama documenti aad hore aad u diyaarsatay. sidoo kale waxaynu soo aragnay sida documentigii la iskaga soo xidho ama haddaad ka baxaysid in la iska soo xidhid iyo printerkii oo ahaa sida loo daabaco iyo intaana daabicin ka hor sida ayaad u sii eegi kartaa ama siduu u eegyahay inay wax kaa dhiman yihiin oo kale inaad iska sii eegtid iyo redo text and undo text oo ah farti ka baabaaday inaad soo ceshatid oo kale. maanta haddaba cashirkeena labaad waxaynu ku arkaynaa intaasoo qodob ayaynu asxaabta qaaliga ku arkaynaa. qodobka koowaad haddaynu sii dul marno dhammaan waan wada tusayaa practicalkooda toos ayaynu idin wada tusayaa, laakiin haddaynu sii yar eegno inta maanta silmiskeena ah ama aynu ku barano videogan waxaan ku baranaa si page-ka iyo qaybahooda kala duwan iyo sida loo soo furto. sidoo kale waxaan ku baranaa sida text ama qoraalo fara badan kelmad aad doonaysid ama qoraal aad doonaysid aad uga dhex baari kartid ama u searching gareyn kartid iyo sidaad kelmad kaa khaldantay oo dhowr meelood ku jirtay aad u bedeli karaysid ama aad u bedeli lahayd. formatting text ayaynu ku baranaa oo iyadana fartaada sida ugu habboon aad u hagaajin kartid ama sida u qurxin kartid muuqaalka fartana diyaarisay siday noqon karto ugu habboon aad u hagaajin kartid. sidoo kale waxaan ku arki doonaa wax la yiraahdo line text oo ah inaad fartaada geysid xagga midigta, bidixda, centerka iyo justify oo ah inaad isku wada sintid ayaynu ku arki doonaa. cashirkeena maanta sidoo kale waxaan ku arki doonaa bullets and numbering calaamado inaad u yeeshid sida qodobada kale inaad calaamado siisid iyo inaad nambaro aad siisid ayaynu ku arki doonaa. sidoo kale waxaan ku arki doonaa breaking page oo ah inaad page kale aad ku soo kordhisid documentigaaga ama sidaad u soo furan lahayd page kale oo hadba marka qoraalkaagu sii farabato sidaad page kale aad u sii kordhin lahayd ayaynu ku arkaynaa. waxaynu ku arkaynaa table-ka ayaynu ku arkaynaa sida table loo soo gashto qoraalkaaga, kolomada sida loogu soo darsado iyo sida loo delete karayo ayaynu ku arkaynaa. waxaynu ku arkaynaa header and footer oo ah header waxaynu ku sheegnay qaybta sare ee waraaqdaada qaybta sare inaad header soo gashatid iyo footer oo ah qaybta hoose inaad soo gashatid isagana footer soo gashatid. badanaa waxaa leh buugaagta ayaa leh xagga hoosena waxaa la soo dhigaa footer, xagga sarena waxaa la soo dhigaa header. marka ama labada mid un baa la adeegsadaa, header marka qaar la adeegsadaa ama footer kaliya la adeegsadaa. badanaaba footerka kaliya ayaa aad loo sii adeegsadaa. inserting symbols ayaynu ku arki doonaa cashirkeena oo ah sidee ayaad calaamado aad u soo gashan kartaa sida addition-kii oo kale, multiplication-kii oo kale, isku qaybintii oo kale, ay nooc oo kale. waxaasoo dhan sidee ayaad u soo gashan kartaa. asxaabta qaaliga casharkan waxay naga codsan lahayn inaad dhammaysataan si aad aqoon uga faa'iidaan, sababtoo ah waxaynu nagama aha video keliyata inaynu soo dubno, laakiin waxa weeyaan inay bulshada ka faa'iido aqoon fara badan. casharkii keliyata ayaynu kusoo koobaynaa inagu intaas oo qodob aynu kusoo koobaynaa, sababtuna waxa weeyaan si aqoon looga faa'iido weeyaan maaha
sababtoo ah waxaynu doonaynaa inay ardaydu ay ka faa'iidaan aqoon fara badan ay ka faa'iidaan casharkan. haddaba asxaabta qaaliga ah, haddii uu casharkani ku soo gaadho waxaan kaa codsan lahayn inaad inoo subscribe garaysid lana wadaagtid ardayda kale ee Soomaaliyeed ee doonaysa inay casharaanta ay ku bartaan af Soomaaligooda hooyo, sidoo kalena aqoon badan ay ka faa'iidaan. channel-kana in loo sii faafiyo ayaan jeclaan lahayn. intaas ka bacdi waxaan tegaynaa wordkeena ay tegaynaa. ka bacdi waxaan doonaynaa qoraalkan ay maalinkii hore aynu soo gashanay haddaad casharkii hore aad dhammaysatay inaynu ku salayno maanta qodobadeenan casharkan aynu ku soo qaadan doono. ka koobaad ama qodobkeena koobaad waxa weeye page setup. page setup haddii aad joogtay home ama insert aad joogtay waa ka soo tegaysaa layout markaad tagtid halkan waxaad ku aragtaa page setup ayaad ku aragtaa. page setup wax kale maaha, waa 4 qodob ayuu ka kooban yahay ugu horeyn, ama 3 qodob ayuu ka kooban yahay. qodobkan koobaad haddaynu soo furno waxa weeyaan intaad u jirsanaysid gidaarka ama qoraalkaadan inta u jirsanayo waraaqda dhamaadkeedan kale sida leftigan oo kale, rightkan oo kale, iyo xagga hoose iyo xagga sare. waa intuu qoraalkaagu u jirsanayo ayaad ka go'aaminaysaa. tusaale ahaan haddaynu kan soo furno wuxuu yiri xagga sare oo top ah wuxuu u jirsanayaa 1.5 ayuu jirsanayaa, xagga hoosena 1 kaliya ayuu jirsanayaa, xaggan bidixda wuxuu jirsanayaa 1, rightna wuxuu jirsanayaa 1 kale. kanna waa kan normalka caadiga weeyaan ee badanaa la isticmaalo dhinac kasta waxa weeyaan qoraalka iga soo go 1 1 1 1 1 iga soo go. kanna waa mid ka yar duwan waxa weeyaan 1.5 iga soo go dhinac kasta. kanna waa sidoo kale, kanna waa dhinac kasta, qaarna waxa iga soo goysaa 1 qaarna 2 iga soo go. marka haddaynu kan aynu ku eegno oo 0.5 ah wuu isbedelayaa qoraalkeenan, wuu kala durkayaa, waan ku dhawaanayaa. tusaale ahaan waa ujeedaan halkan wuxuu ka soo durkay 0.5, xaggana 0.5, xagga sarena sidoo kale, xaggana sidoo kale. haddii uu sii socon lahaa intaasunba ka soo durki lahaa. marka waxaan soo sheegnay in kan normalka caadiga la isticmaalo uu 1 kaas yahay. marka sideenii hore ayaan ku celiyeen. orientation baa jira ama 2 page oo la isticmaalo, waa landscape iyo maxay iyo kan kale weeyaan oo shahaadooyinka loo isticmaalo. ka landscape waxa loo isticmaalaa badanaa oo waraaqda loo isticmaalo shahaadooyinka. hadaynu yar fogeyno sidaas ay noqonaysaa. waa inay waraaqdaadu ay jiifsato weeyaan, sida rectangle oo kale inay u jiifsato. iyo orientation oo ah kan waraaqda caadiga ah ee lines ee taagan. iyadana waa labada waraaqood ayuunbay kala yihiin. marka qodobkaana halkaas ayaynu kaga gudbaynaa. halkan size-ka ayaynu gelaynaa. halkan size-ka waxaad ka go'aaminaysaa waraaqdaadu noocay noqon doonto, ma A5 ay noqonaysaa mise A3 mise letters waraaq caadi ayay noqonaysaa mise A4 ayay noqonaysaa. badanaaba waxaa lagu isticmaalaa wordka ama waraaqaha ugu badan ee laga soo saaro waxa weeyaan waa A4. marka A4 ayaynu dooranayna. asxaabta qaaliga waxay inoogu xigay sidee ayaa loo baaraa ama finding text ayay inoogu xigay. hadaynu isla soo eegno qodobkeena labaad waxa weeyaan waa finding text. sidoo kale waxay inoogu soo xigay formatting text. waxaan tegaynaa finding text-ga markaan doonayno home ayaan tegaynaa. ka bacdi halkaa waxaad ku aragtaa find and replace, laakiin badanaa waxaad dooran kartaa replace oo aad find ka heli kartid, labaduba ay ku wada jiraan. tusaale ahaan kaas markaan saa u doonano halkan koobaad, halkan waa ujeedaa find markaan leenahay kelmad inoo baadh. waxaan dooranaynaa cashirkeena kelmad ku jirta, tusaale ahaan kelmadda wen oo keliya, kelmadda wen ayaan dooranaa. waxaan gelinaynaa halkan. kabacdi waa laynoo calaamadinaya meesha ay kelmaddaasi ku jirto.
tusaale ahaan halkan oo kale ayay ku jirtaa ama halkan ayay ku jirtaa sidaas ayaa laynoogu calaamadiyey waa ujeedaan highlight ayaa la saaray haddaba sidee ayaynu kelmad kale ugu bedeli karnaa replace ayaynu tegi karnaa replacetan qaybtan labaad ayaynu taabanaa kabacdi kelmadeeni ayaynu daysanaa waxaynu ku bedelaynaa tusaale ahaan weer markaynu sidaa ugu bedelno waxaad dooran kartaa labo inaad tiraahdid kelmadan aad iisoo heshay oo keliya tii bedel waa tahay taasaad dooratid iyo inaad dooratid maxay replace oo dhammaan meel kastoo ay weyn ku jirto weer igu bedel oo ujeedaan wuxuu ku dhacayaa 5 ayaa lagu bedelay 5 meelood oo ay kelmadaas ku jirta ayaa weer lagu bedelay kabacdi okay ayaa dhacaysa hadaynu isla eegno halkaas way ku jirtay halkana way ku jirtay intiiba waa la bedelay qodobkeena sidaas weeyaan qodobka kale ee nagu sii xigi doona asxaabta qaaliga maanta waxa weeyaan formatting text aynu ku soo sheegnay waxa weeyaan inaynu farteena hagaajino farteena ugu horeyn waxaynu sameysanaa ciwaan yar ayaynu sameysanaa sidoo kale ciwaan hoosaad ayaynu sameysanaa intaas ayaan ka dhiganayaaba ciwaan sare ayaan intaa ka dhiganayaa sidoo kale ciwaan hoosaad kale ayaan rabaa inaan sameysto si aynu tuso sida loo hagaajiyo tusaale ahaan ciwaanka koowaad markaynu highlight garaysano waxaan dhahaynaa halkaas waxaa laga bedelaa farta ayaa laga bedelaa iyo noocyadeeda kala duwan markasta waxaa dooran calibria ayaa dooran laakiin adigu far allaala farta doontida ayaad ka dhigan kartaa ama waa searching garayn kartaa far ayaynu searching garayna iminka sidaas marka fartii lagu bedelo sidaas marka fartii lagu bedelo halkana waxaad ka dooran kartaa ciwaankaagu inta uu noqonayo tusaale ahaan 14 ayaynu isticmaalnaa ama 16 laban yar ku yar darayna kabacdi halkana waxaad ka dooranaysaa bold xajmi inaad u yeeshid ciwaankaaga xajmi ayaad u yeelaysaa ama waxaad dooranaysaa control B sida halkaa kaaga muuqata control B ayaa lagu soo furtaa ujeedaan waxaynu siinay xajmi ama qaro ayaynu yeelnay halkan colorka fartaadu yeelanayso ayaad ka dooran kartaa tusaale ahaan casaan ayaynu siinay kan kalena waxaynu ka doorananaa halkan way ka yar xajmi yareynaa intii hore sidoo kale waxaynu ka dhignaa bool italic ayaynu siin karnaa waa in fartaada la janjeeriyo ama waxaad keyboard ahaan kusoo furan kartaa control plus I ama control I ay kusoo furan kartaa oo ujeedaan sidoo kale ka yar janjeerdhaa fartan kale underline haddaad doonaysaan oo ah in kelmada hoosta laga xariiqo waa control U ayaad ku dooranaysaa dhammaan intaas ayaad ka fartaada ka wada hagaajin karaysaa tusaale ahaan ciwaankiina sidaas ayaan ka dhignay asxaabta qaaliga farta sidaas ayaad u wada hagaajin kartaa intan haddaynu isku dayno inaynu hagaajino halkan ayaad soo furaysaa oo ah inta ay isku jirsanayso fartaadu inta ay isku jirsanayso kabacdi waxaa ka dhigi kartaa si fartaadu ay noqoto far loo akhriyo waxaynu ka dhigaynaa 1.5 ayaynu ka dhigaynaa kabacdi in macquul ah ay isku wada jirsatay aadna way qurux badnaatay maasha Allah intaas waxa weeyaan sida farta loo hagaajiyo ama formatting text weeyaan waxaynu ku xigsiinaynaa inaynu qodobo aynu sameeyno farteena iyo inaynu number aynu sameeyno ama bullets ama numbering bulletska tusaale ahaan in ayaan doonayaa inaan qodobeeyo halkaas ayaan doonayaa inaan qodobo u yeelo
tusaale ahaan intaas ayaan doonaynaa inaynu qodobo siino takan waymaynu ciwaan ka dhiganaa marka hore kaas markaynu ciwaan ka dhiganay intan ayaan doonaynaa inaynu ka dhigano qodobo bulletiska ama calaamadaha waxaad ka dooranaysaa halkaas sare ayaad ka dooranaysaa waa ka bulletis kuu soo baxaya halka ishaa intaad soo furtid ayaa ka dooran kartaa inaad tig saartid iyo inaad dhibco mamadooda saartid iyo dhammaan noocyadaas kale ayaad ka dooranaysaa tusaale ahaan haddaynu kaaba saarno sidaas ayuu noqonayaa ka calaamadahana sidaas ayaa loo saaraa markaad doonaysid inaad qayb ka mid ah casharkaaga aada qodobaysatid waxaa kusoo xiga inaynu numberin aynu siino aynu ka dayno ama calaamadahan aynu yidhaahno waa number noo sii halkaas ku xigta ayaa soo furaysaa kabacdi numbera ayaa siinaysaa ama a b c d ayaa siinaysaa ama qodobadaas ayaad siinaysaa tusaale ahaan numberada ayaynu siinay waa numberin markaad siinaysidna halkaas ayaad ka dooranaysaa halka bulletisa ku xigta kana waxa weeyaan waa calaamadihii oo lasoo yar kala horumariyay oo kale tusaale ahaan taas sidaas kale ay noqonaysaa tana sidaas kale waa laymankii ayaa lasoo kala horumariyay qaar way isku simayaan qaarna way soo kala horumarayaan sidaas kale weeyaan asxaabta qaaliga waxaynu isla fahanay bulletis numberin sida loo siisto calaamado iyo sida loo siisto numbero loo siisto casharka kale ama qodobka kale inoogu sii xigi doona waxa weeyaan iminka ilaa hadda waxaynu isticmaalnay hal page waxaad ku garanaysaa inaynu isticmaalnay halkaa waxaad ku aragtaa page-ka ayuu halkaa ka sheegaa halkaa page-ka ayuu ka sheegaa markaa waa 1/1 haddii halkaasi noqoto 1/1 waxa weeyaan hal page ayaad isticmaasha laakiin haddii halkaasi 2 noqoto waa 2 page iyo wixii ka mid ah markaa sidee ayaynu page kale ugu soo kordhin karnaa ama waa kan qodobkeena breaking page qodobkaas ayaynu maraynaa iminka breaking page sidoo kale insert table-na waynu soo gelin doonaa insha allahu breaking page waxaan tegaynaa insert ayaynu tegaynaa kabacdi halkaa waxaa ku hartay page break ayaad ku hartay halkaas ayaad ku dhufanaysaa waa ujeedaan ama layout-ka ayaad tegaysaa kabacdina halkaas ayaad kasoo furanaysaa waa qodobka ugu horeeya page inaad soo furatid tusaale ahaan laakiin waxaa iskaga khaldama ardayda badan waxaa iskaga khaldama isagoo qofkii jooga halka ugu horeeya ama tusaale ahaan hadduu qofku halkaa joogo oo is yiraahdo page soo furo page-kan uu imika jooga ayaa laga horeysiinaya laakiin markasta oo aad doonaysid inaad page soo furatid way imay tigtaada ku taagnaato xagga ugu dambeysa si halkaa lagaaga soo furo iminka hadday halka ugu dambeysa in taagannahay kabacdi break ayaan taabananaa page ayaan dooranana waa ujeedaan in page cusub laynoo sameeyey breaking page ama inaad page soo kordhisatid na waa tabtaa asxaabta qaaliga waxaan ku xigsiyeynaa sidee ayaa loo soo geliyaa maxay table-ka waxaan tegaynaa insert ayaan tegaynaa kabacdi tables ayaan halkan ka dooranaa ishaas ayaa soo furaysaa halkan waxaad ka go-aaminaysaa inta column haddaad dhinacan ha u socotid waa inta column waxaa la yidhaahdaa jiifutax joogutax ayaa column-ka la yidhaahdaa rowna waxaa la yidhahdaa jiifutax ayaa la yidhahdaa soomaali ahaan markaa markasta oo aad xaggan usii durugtid column-yo ayaa sii kordhinaysa markasta oo aad xaggan aad usii badatidna rows ayaa sii kordhinaysa markaa waxaan doonaynaa mid 4 row ayaan doonaynaa intaas kale ayaan ka dhigaan intaas markaad ka dhigatid tusaale ahaan markaad hagaajinaysid xagga calaamadda ayr markay kuu soo baxdo calaamadda ayr markay kuu sidaas ayaynu hagaajinaynaa halkan waxaan doonaynaa magac ku qoro
kana waan iska durkinayaa. hal waxay dooran cell oo keliya ta kabacdi halkaa waxaan ku qoranayaa student number. halkana sidoo kale waxaan ku qoranayaa name. halkana sectionka uu yahay ardaygaasi. halkana attendance-giisa ama xaadiriskiisa. intaa markaan qorto waan highlight garaysanayaa si aan usoo hagaajisto. waxaad tegaysaa home, ay tegaysaa halkaas ayaad ka hagaajinaysaa formatka. fartaada halkan ayaad ka dooranaysaa. color ayaan siinaynaa. sidaas ayaad u sameynaysaa. tusaale ahaan waxaan dhahaynaa waa number 1. magaciisu waa cabdi xaaji cabdi. sectionkiisu waa 5 PM. attendance-giisana waxaan dhihi karnaa waa 30. sidaas ayaad ugu buuxinaysaa ama sidaas ayaa table-kaaga aad u design garaynaysaa. haddaba waxaa yimi sidee ayaad ugu soo kordhinaysaa column kale. sidee baan ugu soo kordhinaa? iminka haddaan doonaya halkaa dhexe inaan column soo gashto, waxaan dooranayaa hadda column-ka ayaan dushiisa dooranayaa. kabacdi right click ayaan siinayaa. waxaan dhahayaa insert column ii soo geli. column-ka waxa weeyaan xaggee ayaa lagaaga soo gelinayaa? ma left ayuu ka hormarayaa. marka left haddaan doorto xagga bidixda ayuu ka marayaa. haddii kalena xagga right-ka ayuu ka marayaa. salaana wada calaamasta. waa ujeedaan halkaas ayaa laiga soo gudgeliya column kale. waxaan ka dhigan karaaba classkiisa. class ayaan ku qoran karaa. marka waa ujeedaan column kale ayaynu halkaas soo gelina. row haddaad doonaysid inaad soo gelisid waxaad dooranaysaa halkaad soo gelinaysid, ama column-ka ama rowga aad soo dhex gelinaysid ayaad dooranaysaa. marka sidaas aad u dooratay right click siin. kabacdi insert baa dhihi. miyaad ka hoosaysiin column-kan aad doonaysid mise waad ka sarraysa? iga sarraysay waan leeyahay. halkaad waa ujeedaan sidaas ayaa lagu soo geli. haddaynu doonayno inaynu saarno waa kan delete rows-ka iga saar. saas ayaa laynaga saara. asxaabta qaaliga halkaas waxaynu kaga soo gudbaynaa table-ka iyo sida loo soo gashto, sida wax loogu qorto. waxaynu u gudbaynaa inaynu ku soo darno font, inaynu ku soo darno header and footer iyo calaamadihii. waxaan tegaynaa page-keeni koobaad. markaynu tagno waxaan doonaynaa inaynu ku soo darno header-ka sidaynu sheegnay waa inaad halkaas sare aad number ama wuxuuna aad kusoo darsatid. waxaan tegaynaa layout-ka. sorry insert ayaa tegaysaa. markaas aad wax soo furanaysid waxaad tegaysaa insert. kabacdi waa ujeedaa header halkaas weeyaan. ishaa markaad soo furtid headerro fara badan oo diyaarsan ayaad arkaysaa. tusaale ahaan kaasi wuxuu ka kooban yahay number keliyata. kaasina wuxuu ka kooban yahay magac iyo title-ka documentiga buu leeyahay. kaas ayaynu tusaale ahaan kusoo furannay. ka header kasta marka page kasta oo kuu soo furan si automatic ayuu isku siinayaa keeni ugu horeysa. tusaale ahaan halkaas ayaynu gelinaynaa waa
title-ka uu leeyahay assignment iyo kale weeyaan. halkana waxaad isaga ayaa si automatic iminka isu geliyay magacaaga ayaad gelinaysaa. kabacdi qaar kale oo ka kooban magac iyo numberna way jiraan, waad dooran kartaa headeradaas kale. kabacdi meel maran ayaad right click ku siinaysaa si uu kugu save garaysmo. headerkana waynu sheegnay saas ayaa asxaabta qaaliga loo soo geliyaa. iminka waxaynu eegi doonaa footer sida loo soo geliyo. footerku waa halkaa hoose si aynu sheegnayba. hadaynu kan soo close garayno, badanaa labada mar lama wada isticmaalo. insert baan tegaynaa, kabacdi footer aynu soo dooranaa. tusaale ahaan footer ka kooban number iyo ayaynu la soo baxaynaa iyo magac. iminka isaga ayaa si automatic magacaygiisu siiyey. halkaana numberkii ayuu ku qoray, waa ujeedaan asxaabta qaaliga. footer iyo header sidaas ayaa loo soo geliyaa. casharkeena ugu dambeeya maanta ama qodobkeena ugu dambeeya waxa weeyaan sida ayaan symbols aan u adeegsan karaa. symbols waxaad u adeegsan kartaa, tusaale ahaan waxaan tegayaa halkaas, kabacdi markaan tago insert halkaas ayaan calaamad doono aan ka adeegsan karaa. tusaale ahaan waxaan qorayaa number 6 oo kale ayaan qorayaa number 6. waxaan doonayaa inaan number kale aan u geeyo, calaamadda geynta halkaas ayaad ka helaysaa ama qaybintii wataa. haddii aad doonaysid inay si toosa ay kugu soo wada baxaan dhammaan calaamadahoo dhanna, waa halkan ayaad ka helaysaa. asxaabta qaaliga symbolsna sidaas ayaa loo adeegsadaa. casharkeena maanta halkaas ayaynu kusoo gabagabeeynaa. casharkan iyo intaynu gaari doono casharka kusii xiga insha allah waxaan iga tegayaa kulanti wacan. sidoo kale janaalka hala sii subscribe gareeyo, asxaabtiinana halala wadaago. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.